wasiirka ganacsiga warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdullaahi Cali Xasan ayaa xarig ka jaray bandhigga ganacsiga Soomaaliya oo muddo 2 maalmood ka socon doona Muqdisho. waxaa lagu soo bandhigay ganacsiyo kala duwan oo isugu jiray dalagga beeraha, adeegyada ay bixiyaan bangiyada iyo shirkadaha, waxyaabaha elektaroonikada iyo farshaxanka. mas'uuliyiin ka tirsan dowladda oo isugu jiray wasiiro, xildhibaano, ganacsato iyo qeybaha kale ee bulshada ayaa bandhigan ka qayb galay. ganacsatada soo bandhigay adeegyadii kala duwanaa ayaa ka qaybgalayaasha u sameeyay qiimo dhimis si ay ugu faa'iideystaan maalmaha uu socon doono bandhigan. dadka aad iyo aad bay noo soo booqanayeen maaragtay aad ay noo dhiirigelinayeen laakiin hadda wax gadid ma sameeynin sababtoo ah waxaan bandhig in yar ahaynaa dadkan aad ay u badan yihiin marka contactigeena meesha naga soo xiriir lahaayeen siinay numberskeena marka hadii nala soo xiriiraan insha Allah si waxaan ugu adeegi doonaa qiimo jabin aan ku sameeynaa saabuuntan u jeedid anagu waxaan gadeynaa $2 hadda $1 aan iibinoynaa wax aad aan qiimo jabinay ma saabuunada naturalka shayada naturalka in la badsado kiimikada la iska dhaafo waxyaabaha kiimikada wajiga ku dheelaan haruudo kale la sameeynayo waxyaabaha qubeyska oo kale waxaad wada baladkeen ka wada sameeynaa inuu ka fiso wuxuu ahaa trisho waa bandhigii ugu weynaa abid ee ka dhaca Soomaaliya ka dhaca tan iyo burburkii saaxruhu uu sheegay waxaan ku faraxsanahay oo ku taameeyay riyadaas inay dhacdo wayna dhacday tani waxay fursad u ahayd ganacsatada Soomaalida nooc walba yahay midka bilowga ah midka dhexe iyo midka weyn intaba waxay u ahayd fursad uu maanta ku taameeyay inuu meel uu space u helo oo wixii ku soo bandhigo. mas'uuliyiinta ayaa booqday dhalinyaradii soo bandhigay ganacsiyadii kala duwanaa kuwaas oo ku dhiirigeliyay hal abuurkooda ganacsi inay sii horumariyaan. صابون وايد صابون دريرته جدي باش تركع انا ندي سي هوس دقيسه gudoomiyaha Soomaali Trade Show Cabdisatar Ibrahim Carabu ayaa ka hadlay ujeedka bandhigan. bilawgii bandhig ganacsiga Soomaaliyeed waxaan ka soo bilaabnay himiladii 3 sano ka hor team professional oo kulligood aqoon-yahan ah intuu isku imaadeen ka fikireen sideen ku promote gareyn karnaa bandhigga ganacsiga Soomaaliyeed. magacii ugu horeeya bandhigga aan siinay waxaan ku bilaabnay mada in Soomaaliya aan u bixino. haddana waxaan aragnay ganacsiga Soomaaliya maanta inuu ka tallaabo dheer yahay ganacsiyada kale. waxaan go'aansanay marka inaan magaca qaadanay bandhigga ganacsiga Soomaaliyeed dal iyo dibad. sanadkan marka waxaan xoogga saarnay istaraatiijiyadeed ahayd in aan soo bandhigno ganacsiga Soomaaliya sector walba haddii noqon lahayd beerihii, haddii noqon lahayd energy-ga, haddii noqon lahayd financial institutions ka bankiyada annagoo aan go'aamsanay in aan sameeyno cilmi baaris ku saabsan sector walba oo Soomaaliya. hadda sectorka ugu horeeya aan maanta halkan ka sheegi doono wuxuu noqon doonaa Soomaaliya iyo meelaha ugu muhiimsan oo maalgashi lagu sameyn karo. waxaan ka qaadanay sectorka beeraha. waxaan rajayn doonaa muddo 6 bil gudaheeda inaan soo bandhigi doono biidnillaahi kariim. wasiirka ganacsiga ayaa sheegay in marka la eego ganacsiga Soomaaliya uu ka horeeyay ganacsiga Afrika, taasna ay tahay in looga mahadceliyo ganacsatada Soomaaliyeed oo dalka wax badan ku soo kordhiyay. maanta waxaan joognaa marka meel aan ku faani karno shirkadaheena, meel aan ku faani karno bunuugteena, meel aan ku faani karno gaar ahaan shirkadaheena xagga technology-ga ama wuxuu ahaa xagga taleefanada ay yihiin kuwa ugu horeeya meelo badan oo Afrika kamid ah ay ka horeeyaan service-ka ay qabtaan xagga xawaaladaha, xagga bunuugta. runtii tadawur fiican ayaa laga muujiyay. waxaan rajaynaynaa tadawurka xagga laga muujiyay ama muxuu ahaa aan ka sameynay dhinaca qadamaadka ama service-ka inaan u bedelno dhinaca wax soo saarka. wax badan ayaa la sheegaa dalkeena dhammaantiina waa sheegteen aqoonyahankiyaa sheegay halkan ka hadlay dhammaantood oo Shariif iyo kamid yihiin iyo muxuu ahaa iyo Faisal iyo dhammaan iyo Sabax saaxiibkay muxuu ahaa dhammaantood way sheegeen. marka inaan ku celceliyo uma baahna laakiin macna ma noo sameynayso dalkeena inaan iraahno xeebta labaad ee Afrika ugu dheeraan leenahay. waa la ogyahay waa news ma cid walba way ogtahay inaan iraahno 8 milyan oo hektar ayaan leenahay
oo dalkeenna oo farjina oo wax ka baxaan oo wax laga soo saari karo waa la ogyahay okay inaad niraahno wadanka ugu xagga xoolaha wadanka koowaad ee xoolaha dhoofintooda muxuu ahaa kheyraadka xoolaha ugu horeeya ayaana wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa soo jeediyay in laga faa'iideysto kheyraadka alle nagu maneystay waxa uu sheegay in sharciga dhawaan uu madaxweynaha saxiixay ee batroolka uu suuro gelinayo in dalka shirkadaha shisheeye ay mashaariic xoog leh ay gelinayaan mustaqbalka dhow wasaaradda batroolka iyo macdanta oo aan hadda aniga aan idinkala joogo waxay ila tahay waa Soomaaliya waxaan sectorkaas waxa ugu qaabilsanahay inaan horumar ka sameeyno dhinaca batroolka iyo dhinaca macdanta oo ah sector aad u weyn oo Soomaaliya ay insha Allah ta'ala finalka lagu sameeyay doono maalgashi aad weyn dawladda federaalka ee Soomaaliya oo wasaaraha Xasan Ali Khayre mudane Xasan Ali Khayre iyo madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inta ay yimaadeen waxa aad xooga loo saaray in dib u eegis lagu sameeyo sharciga batroolka Soomaaliya iyo sharciga macdanta Soomaaliya waxaan ku guuleysanay 3 sano kadib inaan meel marino sharciga batroolka Soomaaliya sharcigaas wuxuu hagi doonaa ka faa'iideysiga kheyraadka batroolka iyo gaaska ee Soomaaliya oo laga soo bilaabay baaritaankiisii sanadihii kuntameeyay ilaa iyo maantana Soomaaliya cid kasta ay leedahay waxa ka buuxa oo ceegaaga kheyraad batrool waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala maadaama sharciyadii ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iideysan lahayd isla markaana noo dhaxay lahaa anaga iyo shirkadaha caalamka ee maalgashan doona in meesha ay diyaar yihiin oo madaxweynihii uu saxiixay bishan bilowgeedii